qaar ka mid ah kalluumaysatada magaalada Saylac ayaa cabasho xooggan ka muujiyay waqtiga xagaaga marka la gaadho baraf la'aan soo food saartay isla markaasina aan ahayn meel ay ku meelayaan kalluunkii xalay oo dhan ay ku shaqeynayeen. Kalluumaysatadan ayaa sidoo kale waxay baaq u direen wasaaradda kalluumaysiga iyagoona tilmaamay in mishuunkii sameynayay barafkaasi uu isaga guud ahaanba cilad ku timiday, iyagoona tilmaamay kalluunkii ay xalay oo dhan ka shaqeynayeen aan ahayn meel ay ku maareeyaan. dhinaca kalena wasaaradda kalluumaysiga oo nusaaka booqanay ayaa waxaa halkaasi ay sheegeen inay cilad farsamo ku timiday mishiinkii sameynayay barafkaasi. isku duwaha wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda gobolka Sanaag mudane Cabdiqaadir Haangalool ayaa isagu ka warbixiyay xaaladani. haddaba ay kalluunka gacanta ula galeen markii hore may heli jireen xitaa calaaf ay ku soo qabtaan xabad kalluun oo dekada agteeda u timaadana may heli jirin. marka insha Allah taala hadda waxay la socotay waqti sanad lix bilood ku dhow wax badan oo faa'iido ah oo ka soo baxay oo badda ka soo baxay oo iyagana waxtar u ah badana waxtar u ah anaga wasaaradda magac oo ah iyo xukuumadda ayaa arrinka ka soo baxay oo sida kalluunka soo haddaba ay Xuseen Maxamed Cabdilaahi Shinila News Saylac.